Maanta waxaan kusoo qaadanayaa barnaamijka wadaninimada iyo waxa ay tahay macnaheeda iyo sida laga rabo qofka wadaniga inuu ahaado. Laakiin ma aha sida hadda bulshadeena ay ku dhaqanto. Ma aha inaad calamo iska soo hugsato ood calankeed soo hugsato heesa aad iska qaaqaado in calankeed gacmaha kusoo xirxirato wixii oo afka iyo iidah ah oon jirin maxay niyada lagu dhaqmin oo kaa muuqan. Intaasba inaysan ahayn aragtidayda waa taas waana wax run ah sida hadii qofkii maskax laba uu ila fahmi karo qofka waxaa laga rabaa in uu ka muuqato wadanimada. Marka maanta barnaamijkan kusoo qaadanaya talo iyo tusaalo kusoo dhawaada. Bismillaah. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Waa Cafiifa iyo mar kale janalkeena Cafiifa Janal kusoo dhawaada dhammaantiin walaaladii waa idin salaamay meel walbo aad joogtaan. Jimca mubaarak, jimca kariim. ilaahay maalinta jimcada fadligeeda iyo khayrkeeda hana waafajiyo dhammaanteen. ilaahayna inteena dhimatay ha u naxariisto inteena noolna ilaahay cimri dheer iyo caafimaad ha siiyo. inta dhibaatooyinka ay haystaanna ilaahay ha ka dulqaado dhammaanna ummadda islaamka ilaahay ha u gargaaro gaar ahaan ummadeena Soomaaliyeed ilaahay ha u gargaaro ilaahayna ha ka dhigo kuwa wanaagga iyo khayrka isla garto isuna sheego wax fiican. insha Allah maanta waa barnaamijkeeni talo iyo tusaalo waan kusoo qaadanayaa maalin walba oo jimco ah oo waxyaalo aan kusoo qaatana ay yihiin wax ka jira bulshada dhexdeeda wax u baahan in laga tusaale qaato oo la iska siiyo wixii talo ah ka dambana tusaalena la isku siiyo oo la isu gudbiyo aan aragtidayda saasaan u doortay barnaamijkan. marka maanta waxaan kusoo qaadanayaa wadaninimada iyo sida ugu fiican oo la rabo qofka wadani markuu yahay in uu ka muuqato kuna dhaqmo. marka hadda bulshadeena anaga qofka wadaninimada isu haysta inuu wadani yahay badanaa wuxuu sameeyaa inuu calankii soo hugsado adigu heesii wadaniga meelaha soo dhigta ama qaaqaado oo isu muujiyo qof wadani ah oo dalkiisa jecel dadkiisina jecel. laakiin way jiraan dad jecel oo waa badan yahay inkastoo inta maanta u joogta ay ka fara badan tahay. inta wanaag u joogta laftooda oo jecel dalkooda iyo dadkooda inay wanaag iyo gaaraan heer fiican way badan yihiin. laakiin hadii la sii fiiriyo waxa ka badan inta wax dhaliisho oo marnaba wanaag ku taameynin. marka maanta qaybtaas waxaan u soo qaatay wadanimada aan ahaantayda lama aha wixii in iska iideh loo qaato oo calanka la iska hugsado oo heesii la iska soo qaaqaato oo waxyaalo aad meelaha lagu soo qorqoro qofka isagoo niyada ka jirin kuna dhaqmin oo markuu meesha wixii ka dhahayo uusan ula sii jirin wax ficil ah oo kale intaas iidahda ah aan ka ahayn. marka qofka markuu wadani yahay waxaa la rabaa inuu wax walba oo wanaag ah oo quruxsan oo wadankiisa la jeclaado oo dadkiisa la jeclaado. laakiin adigoo wadankaaga dhinac ka gubaayo ama dhinac ka xumeynayo inaad wadaninimo isku sheegto oo qof wadani ah aad tiraahdo haddana aad dhibaatooyinka qayb ka noqoto waa wax aad u xun yani aragtidayda. marka taasoo kale waa laga fiican yahay qofka markuu wadani waxaa la rabaa inuu dalkiisa wanaag la jeclaado wixii fiican oo arko uu bulshada u gudbiyo uu yiraahdo intaas noo wanaagsan sidaas noo dan ah ay ka muuqato mar walba uu wacyigelinta keeno uu gudbiyo. hadda ilaaha sahlay fududeeyay qof walba oo rabo inuu wax wanaagsan sheego sida inta xumaanta faafisaba ay ula fadhido meelaha social media ay uga qayliyaan oo ay uga gudbiyaan inta wanaag wadana sidaas oo kale ay u gudbiyaan oo wacyigelinta la badiyo dadkii tartiib ayagaaba qofka uu noqon lahay qof wadani oo wadankiisa jecel hadii inta jecel ay gudbiso ay dareensiiso waxaa laga bixi lahaa waxyaalaha iidahda ah oon lagu dhaqmeynin laakiin isu haysta in aad tahay qof wadani ah. yani aragtidayda in badan oo ilamidana way iska jirtaa saan filaayo. marka waxaan tusaale isaga soo qaatay qof wadankii jooga hadda dalkii joogo oo hadii dhibaato yar dhacdo oo ka qayb noqonayo oo wadankii meelihii ugu wanaagsanaa oo bilicda lahaa jijibinayo laamiyada gubaayo taayirka ku gubaayo haddana asagoo saas dhibaatooyadii uga qayb qaadanayo u soo hanqal taagayo wadan kale oo wadan shisheeye qurux ku tilmaamayo. tusaale hadda waxaan usoo qaadanayaa wadanka Turkiga oo kale waxaan u fiirsaday aniga in badan bulshada u fiirsaday
markay tusaale iska wareysanayaan ay leeyihiin wadankee fiican, wadankee dalxiis ku fiican, wadankee deganaasho ku fiican, wadankee ku fiican maxay ahayd nadaafad iyo maxay ahayd quruxda, wadankee u guuraha la igula taliyo ayagoo isweydiinaya in badan aan dhegeysaday. marka in badan waxay leeyihiin waxa ugu wanaagsan Turkiga ugu fiican, waa wadan islaam ah, waa wadan aad u quruxsan, nadaafadiisa ay aad u wanaagsan tahay, bilicdiisa ay aad u quruxsan tahay, dalxiiska iyo meel walba ku quruxsan. qof walba wadanka maxay ugula talin lahaa inaad u guurto Turkiga, xitaa kuwa jooga wadankii, kuwa qurbaha joogay horta ayaga maxay dantaaba ku keenayso oo marka hore qurba joog ahaayeen, laakiin kuwa wadankii joogay, kuwa wadaman kale oo islaam ah joogay oo qurba isugu imaanayaan laakiin wadan kale oo islaam ah joogay, ayaga laftirkooda kulli waxaa loo soo haajirayaa in wadanka Turkiga. intaasna waxaa lagu dooranayaa qurux uu leeyahay, nadaafad uu leeyahay, meelo dalxiis uu leeyahay, maxay maciishadiisa iska fiican oo wax walba laga helayaa, saas ayaa loo doortaa. marka wadankan Turkigana dadkiisa maxay ka dhigtay wadan sidaa u qurux badan, jecel oo dad wadaniyiin ah. marka tusaale hadda anaga maanta aan saas nahay oon dad saa wadaniyiin ah aan u nahay, wadankeena wuxuu noqon lahaa wadankoodaas iyo mid kasii fiican oo noo noqon lahaa. laakiin maanta nasiib xumo tiima haysano, waa naga waxay gacanteena ku jibinay. haddana wixii soo baxa hadda oo xoogaa way soo ifeen la dhaho gacantiyaa lagu wadaa oo dhibkii iyo maxay ahayd dhibaatadii weli lagu wadaa, meeshii yaroo la hagaajiyay ama wadanka kasoo iftay oo indhaha u rooneeday waxaa maxay loo qaadanayaa in la gubo, in la dhibaateeyo. haddii dhib hadduu dhaco wax laga soo celin kara malahan. wixii maxay ahayd dowladda iyo maamul iyo sharci iyo ay ka geystaan ay ka qabtaan laga qaban karaa, laakiin inaa shacabka intuu kaco oo maxay ahayd wadooyinka jibiyo oo taayirada ku gubo oo magaalada oo dhan qiiq isla noqoto, dadkaas oo kale dad maxay ahayd noqonaya ma nihin dad wadaniyiin ah. sidaas ay tahana waan rabnaa, wixii quruxsanayna waan rabnaa, wixii wanaagsan waan rabnaa, laakiin jidkii loo marayo ma naqaano. waxaan ka dooranaynaa wadan kale, waxaan isu tilmaamaynaa wadan kale oo dadkiisa ay u hagaagsadeen, ay quruxsadeen, ku mashquulsan yihiin. anaga isku mashquulsan. tusaale haddaan usoo qaato dad waxaan arka dhahay Turkiga markaan tagnay ama aan degno waxaan aragnay inay yihiin dadka Turkishka ah dad maxay ahayd cunsuriyiin ah, aan kula hadlaynin, aan maxay ahayd ku tusaynin furfurnaan. waxaysan ku tusayn furfurnaan waa dad danahooda ku mashquulsan. aniga wax badan aan u fiirsaday, danahooda ku mashquulsan yihiin, adduunyadooda ay haystaan, wax maxay ahayd aysan iskugu mashquuleyn, aynan dowladooda ugu mashquulsanaynin. qof walba tiisa haysato noloshiisa, maxay kan waayeelka ah, kan maxay cuuryaanka ah, maxay kan dhalinyarada ah, wax fadhiyaba ma qabaan. ayaga waa dad maxay shaqo badan shaqeysto, nolol maalmeedkooda waxyaalahooda ku mashquulsan. marka waqti ayaga waqti hadaad fiirsato inay dad waqti isu haaya aysan ahayn, laakiin anaga waxaan rabnaa inaan dhaqankeena anaga aan lahaynay, qayladeeni maxay ahayd qofkii maanta kaa hor yimaado rabo inuu daqiiqadaas uu kula taagan yahay kugu barto xaaladaada oo dhan ogaado hor iyo gadaal, dabeecadahaas oo kale rabnaa inaan dadka la qaybsano kale. marka waxyaalahaas maxay ahayd anaga naga maqan. waxyaalahaas oo dhan waa wixii aan ku dhumino, waa maxay ahayd in anaga isku mashquulno, dowlad haday noo soo baxdo aan ku mashquulno. wixii dhan waxa aan ku dhuminayba in aan noqono dad wadaniyiin ah, wadankoodi jecel, wanaagoodi jecel, ayaga noqdo dad maxay ahayd danahooda ku mashquulo. waxaan ku dhuminay in anaga isku mashquulno, maxay ahayd dhibkina aan qayb ka noqono aniga aragtidayda. marka aan ku dayano bal anaga waan ku dayano oo wadankoodi waan qaltaagnaa oo waa isu tilmaanaa, bal aan ku dayano anaguna inaan wanaag uga dayano oo horumarkaas aan uga dayano, inaan dalkeen dad jecel noqono oo maxay dad wadaniyiin aan noqono. maanta barnaamijka qaybtaas kusoo qaadanayaa insha Allah. markii waxaan filayaa inaa idinkana ila garataan barnaamijku maadaama uu yahay talo iyo tusaale ahaan waa idinku tusaaleeyaa, wixii talo ah aniga aragtidayda ahna waa idinku soo gudbiyaa insha Allah. inaa wanaag u garataan aan rajeynaa dhammaantiin walaaladee. maanta qaybta intaasaan kusoo koobayaa insha Allah. waa noo jimcada xigta iyo haddii Ilaahay nafta igu simo khayr badan aan idin rajeynaa dhammaantiin. Ilaahayna ha naga dhigo dad dalkooda iyo dadkooda jecel. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.